ardayda jaamacadaha ka baxda Soomaaliya arag markay qalin jabinayaan oo jaamacad ay dhameeyaan dufcadan oo dhan meel waxay tagayaan sawirada oo dhan ay ku dhijinayaan dufcadan ayaa qalin jabinaysa xafladii qalin jabinta markaas xaflad ayaa la dhigayaa markaas Ilaahay waan qalin jabinay jaamacadii aan dhameynay waad mahadsantiin khayr Allah idin siiyo jaamacadaas kuwaas dhameeyay tirada badan ee meesha ku dhagan kuwa aan ka yarayn baan maalin walba intaan isku soo dhajino baan kor waxaan uga qoraynaa tacsi Allah u naxariisto kun way qalin jabiyeen marka ilaa intee wadaynaa marka way qalin jabiyeen way wadeen tacsi markii la iswareysay waxaan xagee ka imaadeena ma la isweydiinay ma la dhahay war inteen xal u raadinaa cid isweydiinaysa male beesha caalamka wax la yiraahdo oo mushkilada way fiirinayaan meesha ugu xun markay marayso ay dabka isku raacinayaan kana way u tagayaan hay kan way la shiraayaan kana way la shiraayaan waa sidii waxay naga dhigeen nina waxa la haween intuu qabayba waxay isku khilaafeen horta talow uu jecel yahay islaamaha markaas odaygu nin khatar waa wuxuu yiri intaad sii jeesataan midii aan dhabarka ka taabto ayaan jeclahay markaas ay sii jeesteen markaas intoodiiba dhabarku ka taabtay mid walba sii deysay anuu jecel yahay marka dhabarka istaabasho inta la iska daayo quraanka inoo sheego gaaladina ma jecelo inagum ba daba ordayna ma ogiye ilaahay wuxuu yiraahdaa antum ulaa'i wardad yahu idinkan ha antum ulaa'i idinkum ba tuhibbunahum jecel wala yuhibbunakum laakin ayagu idin ma jecelo kuwa badaan oo inay rabin ayaa kamid ku soo baxay waxa kamid ah Barack Obama ma ayaga rabi wuxuu ku soo baxay leey jidkii la mari jiray loo maray bas tag suula kursi soo ku fadhiyay la arkay ma dhahaya ninkan madow waaye cadaan ma aha aan la gadina ma jirto hal hadii la gadiyo oo si isku ogaa laga leexdo hadhow meel laga soo qabto lama helaayo waqtigiisa dhameystay ka leexda waqtigiisu dhameystay doorashooyin kala laga baarlamaan congress si loo waday Ilhaan Umar soo baxday oo Soomaali ah Mareykanka odagii waa kan Ilhaan Umar waxa ay saysa Trump marka gabadheen haday Trump la dagaalayso horta bal meesha aan joogno ogaadab gabar Soomaaliyeed iyo Trump ayaa facsiman oo way la dagaalaysaa asna warkiisu sheegtaa aydan warkeeda sheegataa marka dambana ardayda kala celiyo maal dhihi doona intii meesha ku dhimatay Allah u wada naxariisto kii dilay iyo kii dhintay kulli Allah u wada naxariisto inta noolna Allah wada kulligeen marka Allah wada naxariistaana marka xal ayay naga rabtaa xalkuna islaamku ku jiraaye islaamkeena iyo diinteena intaan aamino makriga iyo shirqoolada la inoo maleegayo ee la inagu sameeynayo ee danteena aynu ku jirin ee gaado ay sameeynayaan iyo inaan sidaan ka baxan aan diyaarka loo ahayn seen la lagu haayo sidii looga bixi lahaa hadayna dad u kicin oo warseen ka yeelna laga tashanin saan baa lagu jiraa mar khayr Allah siiyo bariga waxa jiray bariga oo jaadka la joojin jiray bariga jaadka inta la joojiyo qofka lagu arko dabargoynta qaadka dhigi jiray waa la mamnuucay guriga laga wareegay liiro waad ogsoontiin dadka waashu yaqaana jaadka soo lama joojin dadka madaxda ee jaadka joojintiisa soo saaray ee dadka dadweynaha ku ciqaabaya ayagu way qayiraan waa loo keenaa sidoo loo keenaa galabtii iyo habeenkii u fariisanayaan way qayiraan jaadka waa la joojiyay guriga lagu wareegay waxa la jaad lagu qabtay oday garsoora waqtigaas xilligaas yaa kuwo jaad lagu soo qabtaa loo keenay uu diiwaan geliyay intay ahaayeen intii jaadka lagu soo qabtay waxa la marka faylkooda la soo cadeeyo baaritaan lagu soo sameeyo hal soo celiyo mar kale markii kale inta la gaar xabsi markii lagu celiyay intii dawladda show kuwa ka agdhow isku reerka ahaayeen hoosta laga sii daayay intii kale baadana lagu soo celiyay maxkamadii garsoore markuu yeeray hebel aaway ma joogo kuwii askartu weydiiyay wuxuu dadkii kale aaway ana gudoomiye waan soo kaadinayna intay dhaheen ayay baxsadeen masaasaha afmaameentu kula hadlay sheekana qaadno Allah naxariisto dhintay intii maxaabiista kale ay meesha fadhiday ayaan la sii deynin ya warantu qooxay isiina baha kaadiya idinka baa soo kaadiyay hadii inta la soo kaadiyo iska baxsanaayo maxay idinka meesha ku haysaan kaadid ma ismiyay ordu idinka la soo kaadiyo يعني دينتي إسلامك أهيد وحي إلهي وحارانتني مي أول لوجيدو
hadduu uusan markaa asaga markaas u muuqato adduunyo una uga jeedin wuxuu leeyahay inoo wada hawsha war ilaahay ma ogole ka joog mida waxaa la yidhi wuxuu yidhi 4 naawood ka badan aan guursanaa dadkeena way dhammaadeen dagaalla lagu dhammaaday si aan intii dhintay u soo gudo waa inaan 20 iyo 30 iyo meelahaas guursado waxaa la kitaabka ilaahay ma ogola 4 ka badan markaas uu iga leexo kitaab ilaahay dantay moog kitaab ilaahay muxuu dantay ka ogyahay dantay ana aqaanay ma kitaab dantay يعني marka arintu ay noqoto dantayda anun ba aqaana taasi wax sax ma aha danta ilaahay ba yaqaan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ilaahay wixii aan sameyn jiray carafan soo istaagay adna waad ii ogtahay anna waan is ogahay wixii xumaa aan sameynayay halkan aan ku ga toobad keenay oo dhigay ilaahay marxaati ka ahow wixii dadku ay ugu lahaayeen waan u celinayaa iafiyana waan dhahayaa dib dambana u geysan maayo kacbadaada agteedana ballan ku galay masaama soo dhaaya ma dharca intuu ku gasto halka uu ku joogo oo wuxuu leeyahay duro Facebook kala socda markii wax laga sheegay aan idin soo noqdo xaquba ka soo dhaaranaya maxaad noogu soo noqod nagarta soo adigii toobad keenay ma aha yaani ka soo qabaysay ma dambiga waxay un ka dhigeen soo hadda midalan ajal marka dhageysanayso hawl yar inaad qabsato aad rabtid soo macala bows soo lama taabto dambigu bows u yar istaagsi bas bows loo dhaay bas inta maalmaha xaj kala joogo bows u yahay markuu ka soo laabtana meesha muu ku dhufan bowskii uu ka qaadaya halkii uu ka sii wadaya idan xajkii muxuu taray al hajjul mabruur ma kaas marka ko mukhayad soo galay waxa la yiri sokor iyo waxbuu qabay wuxuu yiri sokorta kabariyeri wuxuu yiri sokorta haygaga soo darin waan iska mashquulsan oo ahaaye sokortii uu ku soo daray shaahina korku uga soo daray uu soo hordhigay markuu soo fiiriyay nus wax ku dhow sokor waa markaas sokor uu qabay dhiikarka ku kacay qaylo wiilkii yaraa ku qaylo wariyaas oo kuma dhin sokor haygaga soo daray maxaa sokor ku soo dartay wiilkii kama baahan wuxuu yiri adeer ha ku qasinno korle kacbis markaad waxaan ka wada kii mucaarado waxba dilaynin oo la dawladda halkaas ay ku khaldan tahay Soomaa wixii ay ku khaldan tahay la sheegay ha ku qasinno adi meeshii la iska toosi laakiin waxa dib u heshiisiin u baahan dadka isdilaya hadda ka hor qisay waxa linaa meel uu sheekh ka aha marka sheekhani waa nin rageed maahine cilmiga ma yaqaano dadku iska waabsadaa marka laakiin mid uu imaaday maalinka dambe marti oo sheekho laakiin wax yaqaana wuxuu dadka ku wacdinaa oo leeyahay qaala ta'ala ilaahi wuxuu fankihu ma daaba lakum min an-nisaa fankihu tukada ma daaba lakum min an-nisaa مثنى لبلبة تكذا أو حلقة ولا صلاة الصبح هي والرباعة هي والثلاثة والرباعة ثلاثة ومغربك والرباعة أنا وأنت كلا ما كفهمك تكذا شيخ هو يابي وحوري أنتوا الله هذا هذا إلهي بنكون دار شيء ما فهمك حبة تكذا وحوري ومحيت هدينا هي فهمك حبة تكذا محله فسري كرا مركز هو قرت مركز ماشي إلا سوق عليه بس إنه ماشي عشتين ورا بعضيه وفنك حوت كذا ليس يأهاتو وحولي دتك انتوا الله الحول جيست نكاس بريس صباح أيام مساك سوي معنا هنا وأنا الدودينا قفك علم لا إذن كان كلا سارسين دد دوينيتين صدح سؤالون بنا ويدينا يا هذو صدح لبنا وان كهلا أو يلا هذا ها هذو كجوابه إنه سووا حبا قونين أو مد ظالم أو أنا جاي قدر هاي السنة إنه يهاي سأو أجاده وهاي بس ماشي على السوق ماضي بدأت كنوع ماضي هيا شيخي هدا يجوا يسفنك حوت كذا عاوي وأنا أقول أنا كويس يسفنك حوت كذا معه مركز سوري سؤالا كويدينا يا مركز سوري ويدي إلهي صمده قل هو الله أحد مركز سوري ها الله السمد سو إلهي مده ها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفار أحد سو إلهي مده ها معايا أربعة عندها كلفت والسكوب هذا مركز كان صدح مري هامك كجسي يورت ها محور ربان مركب ما شو ربان وقصوا ويسرق قسمت مركب تدكي وحيدة مركب علماء كلا قبت هذا كسماي وحكى سعد هوا علماء كلا قبت إنه ينوت على مركز علماء كلا قبان لاين هديها موجتاي سمع قالوا كلام كلا لها
qolal oo ay kala seexseexdaan waalidka iyo caruurta iyo male aqal Soomaaliga la wada seexdaan kuwa ku kuusana marka aqal Soomaali dhinac ka seexda reebaadusay wax ku dhal ayaga yaqaan marka saas ay taani waxan baa la dhalaa mar ay seexdeen ilmuhu haday doonaan markaas kadib laga dhigto dib loo dhigto habeena marka ilmihii mid ka mid ah oo inuu seexday loo maleeyay malaha ma buuna seexanin soo jeedi waxbuu arkay markaas subaxdii yuu ku yar uga sheekay wuxuu yiri waxbaan ku tusi caawa seexanin haye istaan baa la galay ilmi istaan bay ugu jireen xilligii dambe ee xaaladu ay ahayd ayaa la gaaray kii wax ballamiyay ee hore yaa wuxuu damcay inuu kii toosiyo oo yiraahdo hawsha hadday bilaabanaysa markuu damcay inuu toosiyo ayaa wuxuu yiri waryaa waan soo jeedaa indha farahay gelin indha farahay gelin niyowan hadda Soomaali xaaladda ay joogto waxay tahay waa la soo wada jeedaa kuwa waxay marka dadka indha farahay geliyaan waa la iswada fahmay waxa la isku haysto waa kursigaasi seen uga heshiina intii la yiraahdo taas inagoo heshiisay dan inoo wada tahay saas ma lagu qaybsadaa ilaa laga gaaro ma soconayso